afhayeenka qaatumo ee waddanka Imaaraadka Carabta Rashiid Diiriya Faarax ayaa waxa uu taageeray wadahadalada Soomaaliland iyo qaatumo la filayo inuu ka furmaan magaalada Hargeysa. Rashiid Diiriya Faarax oo qadka telefoonka kula xidhay isagoo ku sugan magaalada Dubai ee waddanka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu sidoo kale jawaab ka bixiyay hadallo ka soo yeeray qaar ka mid ah mas'uuliyiintii qaatumo kuwaasi oo ka soo horjeestay wadahadalada Soomaaliland iyo qaatumo. Rashiid Diiriya Faarax dhinaca kale waxa uu ka hadlay xaalad coladeed ka taagan deegaamada gobolka Sool waxaana ugu baaqay beelahaasi in ay nabadgelyada ilaaliyaan. waraysi Rashiid Diiriya Faarax qadka telefoonka kula yeeshay ayaa waxa uu dhacay sidan. bal ka waran waxa la soo gabagabeeyay colaadii muddada dheer socotay ee labada beelood ee koonfurta gobolka Sool ku dagaalamay bal arintaas ka waran. bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa wariyaha Khadar Macalin iyo TV-ga Bulsho aad iyo aad baad idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan leeyahay iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay idinku salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. su'aasha aad weydiisay arrimahan dagaaladii ka socday gobolada Sool Sanaag meelo ka mid ah gaar ahaan aan carabka ku dhuftay labada beelood ee walaalaha Qayaad iyo Baarasame oo muddo loo arrintaas dagaaladoodu ay halkaa ka socdeen oo ilaahay u soo diray farash khayr qaba u soo diray oo hadday tahay culimo ka socota goboladan deegaanka ah oo Sheekh Cabdinaasir hogaaminayo iyo dadkan walaalada ah ee deriska iyaga ah ee ka soo jeeda gaar ahaan beesha sare saxaaqyaaban caraf al-salaadiintoodii oo u soo gurmaday oo uu weheeyo garaad Suldaan Cismaan Cali oo ka ahayd ka soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn. arrintaas ay ilaahay ku guuleysiyey annagoo haddaan nahay ummadda Khaatumo ama gobolada SSC meel kasta ay joogaan waan soo dhaweynaynaa. ilaahayna waxaan uga baryaynaa ummaddii halkaas ku dhimatay labada beelood ka tirsanay ama ku dhashay ama ku dhimatay ama dhibaato ka soo gaadhay in ilaahay caawis khayr ilaahay uu ka dhaliyo ku xanuunsan ilaahay uu caafimaad siiyo. waan gartay afhayeen waxa tahay afhayeenkii Imaaraadka qaatumo muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku sugnaa magaalada Hargeysa madaxweyne qaatumo Cali Khaliif iyo mas'uuliyiintii guddiga wadahadalada. arrintaas wadahadaladii baa la rabaa in la soo gabagabeeyo wajigii ugu dambeeyay muxuu yahay dareenkiina arrintaa ku aadan? inaadara waxa weeye horta wajigii ugu dambeeyay haadhihina annagu ilaahay hadda madaxdii Khaatumo ee maamulka Khaatumo nama ayeen oran wajigii ugu dambeeyay Hargeysa lagu soo gabagabeynaya kamaanu hayno qofka in wuxuu sanaadan laga sameeyo maaha. anigu rashiid ahaan dadkii ilaa SSC la shirki Nairobi ka qayb galay si lagu dhisay baan ahaa welina sidii baan u taagsanahay ilaa SSC ilaa Khaatumo u taagsanay tacab badan baa iga galay aniga niman iyo gabdho beesha ka soo jeedaba in maamulka Khaatumo ama Khaatumo ama SSC dhibaatada ka baxaan maadaama maanta ay wada hadallo bilaabeen oo muddo hadda sanad ku dhaweey socdeen annagu ka jaaliyad ahaan iyo ka qodob joog ahaanna waanu soo dhaweynaynaa waanu taageeraynaa waanu la shaqaynaynaa ama Hargeysa lagu qabto ama Arsabaa lagu qabto ama Jabuuti lagu qabto. waayo runta markaan kuu sheego maanta nin Ingiriiska ama Maraykanka ama Kenya ka hadlaya ama xamar ka hadlaya dhibaato dalka haysa waxba ka qaban karin maayo ama dhulbaanta ama inuu colaad qaato oo dhulkiisa colaad ku soo ceshado oo dadkiisa colaad nabadgelyo wada hadal iyo nabadgelyo ku dhamaysto ama uu colaad qaato wax ka dhaxeeya ma jiraan. maanta ismada dhulbaante waa ka ismada ka soo gurmada in ay Hargeysa berbera baarsan qayb ka dhex jooga oo ciidamadooda ka dhex jooga. marka waxaad taageer afhayeen marka waxaad leedahay waanu taageeraynaa waanu soo dhaweynaynaa waanu la shaqaynaa wixii dan ugu jirto waxaan ka codsanayaa Hargeysa Cali Khaliif tagay Arsabaa tagay Somaliland waa la shiraya maxaa loola shiri waay waa la shiraya waa la wada hadlaya gobol baa lagu dhameeyaa haddii dagaal wax loo qabanaya ay wada hadal maanta ogol yihiin aad iyo aad waan soo dhaweynaa. maanta ku jiri mayna maalin kasta shir baa la qabanaya iyo meelabla Kenya lagu shiraya xamar baa lagu shiraya Buur baa lagu shiraya Dalkeen baa lagu shiraya Elmayno shirarkii waa dhamaadeen. kaas ugu dambeeya ee maamulka Khaatumo waxay go'aan ku gaaraan maamulka Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo oo ay waliba shacbigooda kala tashanayaan. diyaar baan u nahay waanu soo dhaweynaa waanu ku shaqaynaa waanu ku garab taaganahay cid allaala cid mid Nairobi ka hadla oo ku hadla Nairobi Nairobi maanta ka hadlay saxaafadda ku arkayay walaal xamar ka hadlaysay oo shirka cambaaranaysa oo maalna cambaaraysa maalna yeesha annagu u dulqaadan mayno dhibaatada shacbiga 15 sano loo geysay u dulqaadan mayno. haddii maanta xal nabadgelyo lagu helay Hargeysana maaha islaam maaha talaadid maaha waa magaalada Soomaaliya shir baa lagu qaban karaa. ninka maanta Hargeysa diiday ee ogolaaday Arsabaa ama Nairobi lagu shiro maxay tahay joogaab qabiilo ku shaqaynaya ha ahaato wixii maamul loo gooyaan leenahay wana taageerina waan la shaqaynayn. waxa ka taagan magaalada Ballecad
oo ah goboladiisii meel ka mid ah yaa muddo hadda bila waxaa ka taagan dhibaato bal maanta nimankaa qaylqaylinaya waxaa dhacday 2 wiil oo ka tirsan beesha aan kasoo jeeda ee reer guuleed gala la yidhaahdo yaa isku dilay meesha laga balaxad 35 oday oo ka tirsan beesha yaa gacanta ka maamulkiisa saarkiisa wareer ku xiran oo aan waxba garabsan dhibaato halkaa ka taagan weli waa taagantay webiga ka taagantahay dalcadda ka taagantahay xamal buuxda ka taagantahay nin insan oo ka hadlay ma jiro nin siyaasi oo ka hadlay ma jiro nin kuwan maanta beelaha leeyihiin isma yihiin weli kama hadlin waxaan arrintaa ka taagan balcad arrintaa ka taagan waxaan ka codsanaya haddii ay dhammayn waayaan beesha guuleed garaad oo weliba garaad maxamed garaad abshir caaqil saalax uu hormood ka yahay haddii arrintaa lagu guulaysan waayo waxaan ka codsanayaa ummadan ku guulaystay qayaad iyo baarasame ee heshiiska dhex dhigay inay iyagana maanta soo dhex galaan arrintaa ka taagan magaalada la yidhahdo woodwood baaqaasna waxaan ujeedinaya dadka ku dhashay deegaankaas woodwood inay usoo jeestaan nabadeeda qaataan 35 nin ku xiran ee odayaasha ku xiran meesha la yidhahdo wadheer ee maamulka galgashaan la xirayna ee dhibaatada halkaa ka taagan halkaa lagu xirayna waxaan ku codsanay in xorriyadooda loo soo daayo arrintaana loo daayo beesha gudaheeda iyo dhulbaanta weyne gudihiisa loo daayo ama cid allaale ciddii ummadda soomaaliya ama deris ahaatay ama cid kale ka qayb gelaysana waana soo dhaweynaynaa arrintaana waxaan loo jecel lahay in looga dambeeyo oo weliba hormood uu noqdo garaad maxamed garaad abshir garaad saalax caaqil saalax inuu arrinta halkaa ka taagan baaqa soo saaro oo arrintaana uu wax ka qabto dadkan dhibaato dhexta walaalada ilmaadeerka ruma ahna ay arrintaasi ogolaadaan nabadgelyada wixii dhacay waa dhaceen